single mother 40 jir ah oo dhashay 44 caruur ah. Dhammaantood waa isku hooyo iyo isku aabbo. Hal guri ayay dhammaantood ku wada nool yihiin. Qisadani waa mid aad u xiiso badan leh. Ila joog oo ila soco. Magaceedu waa Maryam. Waxaana lagu naanaysaa Mama Uganda. Mama Uganda, she's the mother of all these kids. Hooyadan sheekadeeda waxaa markaasi barnaamij nooga soo diyaariyay YouTuber markaasi u socdaala caalamka iyo wadamada dhan kana soo tibiyay dhacdooyinka markaasi xiisaha leh iyo qisooyinka. Magaciisu waa Jiw. Xataa waxaa sidoo kale barnaamijyo badan ka diyaariyay telefishinno caalami ah oo ku kala yaala wadamo kala duwan. Hooyadan guud ahaan waxay dhashay 44 caruur ah. 4 jeer oo min 2 ah, 5 jeer oo min 3 ah, iyo 5 jeer oo min 4 ah. Guud ahaan waa isku 43. hal marna waxay dhashay markaasi hal ilmo oo kaliya. Markii kaliya hal qof dhashay. Inta kale oo dhan markaasi waxay dhashay min 2 iyo wax ka badan. Masha Allah. Waxay markaasi kala yihiin 22 wiilal ah iyo 16 hablood. 38 ayaa halkaas markaas tirada nooga muuqata. 6 kamid ah caruurtu way ka geeriyoodeen, Allahu naxariisto. Markaasi waxa imika u nool 38 caruur ah oo dhammaantood هل guri ku wada nool. ليش قوة المرأة انها تقدر تتحمل تطلع من بطن واحد؟ hooyadan markaasi waxay ku aqal gashay ama lagu guursaday iyadoo markaasi 12 jir ah. 13 jirna ilmaheedii ugu horeeyay ayay markaasi dhashay. Dhakhtarka ayaa markaa hooyadan markaa wuxuu u sheegay in markaasi jinka ku jira uu yahay mid aad u dhalmo badan. markaas isagoo markaasi wareysanaya oo barnaamijka diyaarinaya ay mid kamid ah ku yiri saaxiib ma baahnaysan, you don't need friend. marka yani waxay muujinaysaa tiradooda iyo sida isku camirayaan iyagoo markaasi guri ku wada nool. abaha caruurtan markaasi sida hooyadu sheegayso uu iskaga tagay markaasi markii ay u dhashay ilmihii ugu dambeeyay 2016 December. iyadoo barnaamijka lagu guda jiro markaasi waxay geysay goobtii caruurtu seexanayeen. marka waxa loo kala qaybiyay sidii boarding oo kale, hablo iyo inamo. sidoo kale waxa iyagana lagu sii kala qaybiyay da'da oo 12 ilaa iyo 20 xaggan bay seexdaan, 20 iyo wixii ka weyn xaggaas seexdaan. adigu qaab boarding oo kale waad garanaysaa markaasi sida dadka loo kala qaybiyo sida u seexdaan. sariiraha sida nafarku isku dul saaran yihiin ee tabaq u kala yihiin. ya salaam. sidoo kale hooyada waxay sheegtay in ay iskuul meel wax ku wada bartaan oo macallin wax baro, taasoo ay markaasi hay'ado muxsiniin ay ka caawiyeen. hooyada la weydiiyay markaasi xaaladani ku jirtay waxay tiri waa nimco aad u wanaagsan, waan ku faraxsanahay, alle ayaa mahadle. hooyadan markaa waxay sheegtay sidoo kale diinta ay caruurteeda iyaduba haystaan inay islaam yihiin inkastoo aabahood ahaa Kristan, laakiin imika diinta rasmiga ah ay haystaan ay tahay diinta Islaamka. Masha Allah. run ahaantii waa hooyo adkaysi ku dhan yahay oo 44 caruur ah dhashay, 38 caruur ah hal meel ku wada haysa. dhammaantood runtii xaaladooda aad arkayso sida intay tiro la yihiin, walow ay hablo badan ka cabanayaan iyagoo markaasi 3 caruur ama 5 caruur haysta. waxaan Ilaahay uga baryaynaa caruurtan in Ilaahay la garab galo, Ilaahayna barakeeyo oo hooyadood ay anfacaan. tacabkan iyo adkaysigan badanna abaalkeeda ay dib ugu soo celiyaan insha Allah. sheekada hooyadan gaarsiin saaxiibo badan oo nala faafi. aad baad mahadsan tahay. intaan ku kulmi doono barnaamij lamid ah waxaan idin leeyahay Ramadaan Kariim.